sida warkaad kula socoteen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa maanta uu duulay magaalada New York ee dalka Mareykanka oo markii ugu horeysay uu kaga qayb galayo fadhiga golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay. madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada New York waxa uu khudbad ka jeedin doonaa fadhiga isagoo sidoo kalena kulamo la yeelan doona qaar ka mid ah madaxda caalamka ee ka qayb galaysa shirkaasi. falanqaynta warka ee telefishinka waxa marti ku ah Professor Mustafa Maxamuud Al-Khaliili oo ka mid ah maamulka jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa. Professor soo dhawow. aad baad mahadsantahay waan dhawahay. maxay uga dhigan tahay madaxweyne Farmaajo inuu ka qayb galo fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay? horta waa u fursad uu ku iibinayo dalka uu madaxda u yahay ee Soomaaliya la yiraahdo oo dhibaatooyin fara badan oo amni dhaqaale siyaasadeed intaba ay haystaan lana baaxadagay insha Allah taala duruufo dalalka Afrika ina kala sineen inteeda ugu faraha badan leh fursad bay u tahay inuu tago General Assembly ambassad sheegtay kulanka guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo ah organ kamid ah organada United Nations ka qaybihiisa qaybta ugu ballaaran ah waa qaybta uu dal kasta dalku ay ku leeyihiin kuraasta oo dal kastaana uu yahay hal qof oo Allahumma salli ala Muhammad meesha markaas dadku ay simeeyeen awoodo kala sareeya ma laha sida organada qaar ay leeyihiin awoodo kala sareeya ka mid tahay qaybta golaha ammaanka ونقولين فيتو إليهن قار ليلة permanent and members يجين 60 لو يقال non permanent members أو يقولون عضلين ما هو الله جت كنا سبليجو بكلن كان جودة جماعة قلنا فرصة بأوتها وكوي بنيو الله حكومة دي سوي لنا خرومركا بليس أي كجاد لنا عكسه يجو شيئا بليس لكن ما كلا يجو حاجة أمنية اللهم صل على هذا دبعتين فربنا باكسو كتير ذلكي وحكتير أون لحلين ولي خلافات كل حي دولة قبل ذي دولة دا وحياة بدن بتش اللهم صل على الجود إنه حقوق الإنسان كيف مع أيضا دبعتك كتاج أنت سيمان جلويد باليونايتد نيشن كلا جود جدني أرجع حمين توقع بس حقوق الإنسان قص ينصم marka waxa isaga fursad bay u tahay inuu madaxda caalamka la kulmo oo ku iibiyo siyaasadka dawladdiisa inuu taageero u helo xukuumaddiisa iyo dalka uu markaa madaxda u yahay. maxaa la filayaa in khudbadiisa uu kaga hadli doono waxyaabaha ugu faraha badan uu ka hadli doono waxa weeyaan waa ammaanka iyo horumarka dhaqaalaha waliba ugu fiican uu ka hadli doono waxa weeyaan horumarka dhaqaalaha oo aad moodeen xagga waji fiican ay u yar qaaday marka loo eego xukuumadii hore sida ay ka mid tahay in deymihii laga cafinayo processkii meel fiican uu marayo cashuurihii dalka laga urinayo meel fiican ay marayaan waxyaabaha culayska saari doona waxa weeyaan xasiloonidaas uu ku amaanay World Bank iyo IMF in waxyaabahaas ka hadla laga yaaba waxyaabaha ku hadlay waxaan istiraatiijiyadiisa horumarineed ee xagga amniga iyo sida dowlad goboleedka doorashooyinka ka dhacay ayuu sheegi doonaa kulay waxyaabaha ku soo dar doona oo kamidana waxa laga yaabaa inay tahay khilaafka maca u dhaxeeya badda Kenya Soomaaliya lafteeda inuu taabtana waa laga yaabaa si guud iyo Allahumma salli ala hada dhamaan arrimaha gudaha dalkiisa ayuu ka warami doonaa wuxuuna muujin doonaa in labadaas sano ee uu hayay xukuumaddu problemka badan ha jiraan laakiin inuu isaga baa la jeedinayay in horumar fara badan uu jiro deedna wuxuu ka qancin doonaa kulli diblomaasiyiinta iyo madaxweynayaasha caalamka dhaleecaynta ugu faraha badan ee kaga imanaysa bliis in Soomaaliya ayna weli cagaheedii ku taagin corruption fara badan jiro qabyaaladii ay jirto xukuumaddu ay maraysan awood decentralization ay ka dhigayso awoodda dowladaha gobolada ay faragelin buuxa ku hayso sida Jubaland imikeen ognahay ay ku hayso faragelin buuxda Allahumma salli ala Dhuusamareeb iyo dowladii Galmudug horena waxay uga adkaatay dowlad goboleedii ka jiray Baydhabo inkastoo Puntland faragelinteeda ay u shaqeyn weyday Jubaland ay u shaqeyn weyday waxa soo dhan waxay ahayd Allahumma salli ala hadi waxay indhaha caalamka ku soo jeedinaysa in dowladdu ay doonayso inay u bedelato habkii centralized awoodii gacanta lagu hayay halka madaxweyne oo awoodda laha oo decentralization kii daadajintii maamulka iyo dadku ismaamulaan waxoogaa faragelin fara badan uu ku hayo taasoo dhinacyo fara badan beesha caalamka la kulmay waxyaabahaas oo dhan buu fursad u raadinaya uu kaga masaxo oo uu ka helo taageero ama mashaariic siiya oo ka taageera xagga amniga la dagaalanka musuqmaasuqa Allahumma salli ala doorashooyinka soo socda waxyaabahaas oo dhan insha Allah taala aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Professor Mustafa Maxamuud Al-Khaliili oo ka tirsan maamulka jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa waxaana marti uu ku ahaa falanqaynta warka